بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامته إذا كين بعمل كستو دنيا نجد عورة سهل كني وورباهين تاتوك هذا ما أنت وحنو كل دقة مدام متمر كان شغلنا الله يعني قدوميها دلالة ثلاثين تا قيسس كصوماليات نرويج أو لغوية في نرويج كصوماليس فاميلي رود ينورجه وعبد الله علمي إبراهيم عبد الله كل إنك سوسة فردير كي ميديا بارجن وانكسر وينيا وربعين تتوجه أدبن دوما سنت ورا العادية مرتي والسلام عادية دعوة توضيع الشاطئ هذا مدن عبد الله بالمركب وهو رسوا عن دنيا أنت هنا ورثي إنك تقولين طلتني هاي قبتها هاي وتاجت دلتني walaal sida magaca ka muuqata waa hay'ad loogu talagalay inay caawiso waalidiinta Soomaaliyeed ee degan Norway waxay maaragtay ka shaqeysaa inay tawjiihin iyo maaragtay talasiinaysiiso iyo aqoon kororsi bulshada Soomaaliyeed qaasatan qoysaska Soomaaliyeed degan Norway waxay ka shaqeynaysaa marka inay ummadii ay u noqoto cid matasha oo talasiisa maaragtay magacooda ku hadasha caawisana markay kiisas ay dhacaan arrimo maaragtay tusaale ahaan la xiriira markay ubad la qaato kale arrimahaas ayay ka caawisaa iyo inay noqoto hay'ad maaragtay la falgasha dawladii oo dawladii maadaama wadan system ka jira oo yahay waxa loo baahan yahay dad midaysan ama maaragtay dad wada socdo oo maaragtay hawshii wada qabanaya soo started ayaa loo asaasay inay noqoto hay'ad maaragtay ka shaqeysa oo matasha qoysaska Soomaaliyeed Norway taladani ilaa imisa magaalada ay xafiis ku leedahay baargan waad joogtaa xafiiskina guud halku ku yaala imisa magaalada xafiis ku leedahay sida caadiga dalda waxay horta matashaa oo kale ka tahay maraakista ama masaajidada Soomaaliyeed Norway waxayna ku saleysan tahay oo loo talagalay inay ka shaqeyso wadanka oo dhan sida started ayaa loo sameeyay maaragtay in jiha kastaba hada koonfurta kale waqooyiga iyo meel kastaba in saas oo kale loo sameeyo dad aniga kale hada waxaan ka imeeday Bergen Hordaland dhinaca Festilanka ayaa macnaheedu galbeedka ayaan wakiil u ahay aniga walaalo kale oo maaragtay Stavanger oo kale waxaan ku leenahay qof wakiila usladan dad baa jooga Kristiasan waqooyiga Tromsø ahaan leed Fredrikstad marka jiha kastaba in lagu helo area-da qof uu mas'uul ka noqdo ayaa loogu talagalay waxa tiri masaajidada ayaan ka mas'uul lahay maxad waxa macnaheedu ma waxa uga mas'uultiin qaybtan baarafa ka mise waxa jiro gole ay ku midaysan masaajidada Soomaaliyeed Norway oo maaragtay 10 sano la soo dhaafay masaajidada waxay ilaahay gole ay ku midaysan yihiin oo ay sanadkiiba hal mar isugu yimaadaan taas oo ay ku sameeyaan ay ka shiraan maaragtay sanadkiiba hal mar taas oo ay ku soo qaataan dhibaatooyinka jira oo looga doodo maaragtay sidii xulul loogu heli lahaa marka hay'addan waxa la aasaasay oo masaajidadu ay maaragtay u wakiishaan dadka hadda ka shaqeeya 2017 kulankii maaragtay ka dhacay haldan ayaa macnaheedu lagu aasaasay ayaa gudi lagu saaray gudigii baa sanad ku soo shaqeeyay 2018 shirka dhacay Fredrikstad ayaa lagu ansixiyay marka 18 si toos ay u shaqeysay marka waxay wakiil ka tahay maraakista iyo masaajidada ay wakiil ka tahay ay qaybtan wakiil uga tahay anaga marka waxaan u fulinaynaa shaqo noola dhiibay oo masaajidada ayaan wakiil u nahay Norway waxay ka mid tahay dalalka aadka carruurta u qaata siiba qoysaska Soomaaliyeed waxay ka mid yihiin qoysaskan kale ajaanibta ilaa hadda arrimahaasi ma idin soo gaareen maxaa ka qabateen imisa kiis baa idin soo gaaray inta aan ka shaqeynaynay maaragtay toos waxaan u shaqeynay 2018 sanadkii la soo dhaafay ayaan si toos u shaqeynay waa sax dhibaatooyin guud ayaa jiro laakiin waxa ugu badan dibka hadda bulshada Soomaaliyeed haysta waxa ugu badan arrimaha la xiriira carruurta iyo hay'adan maaragtay maalinta carruurta la yiraahdo ama barbaarinta ama maaragtay badbaadada ubadka la dhaho barnaamijka anasta taas ayaa horta dibka ugu badan oo ka jira inta aan diiwaan gelinay 2018 waxay ahaayeen carruur waxay isugu jiraan carruur fariin walwal ah laga diro macnaheedu walwal uu dawladda u gaaray iyo qaar la qaatay marka guud ahaan waxay isugu jiraan 100 cunug ayaan
kiiskooda diiwaan gelinay kuwa la qaatay ma guud ahaan kuwa la qaatay 65 ay ahaayeen inta soo gaartay way ka badan karaan waana shakina kuma jiro inay ka badan yihiin laakiin inta anagu ka sifrin ahaan aan diiwaan gelinay 65 ay ahaayeen oo la qaatay iyo inta kale oo maaragtay walwal laga diray maxaa ilaa hadeer idinka qabsoomay ka daba taga kuwii la qaatay iyo kuwa walwalka laga muujiyay qolooyinka walwalka laga muujiyo horta lama qaadan waxaan un talooyin ayaan siinay waalidiintana talooyin ayaan siinay qoladii dawladda talooyin ayaan siinay oo maaragtay howlahoodii inta badan qaarna way dameeno waa la xiray kiiskooda waxa lagu yiraahday waalidiinta talooyinka la sii qaateen dawladda iyo markii laga wada shaqeeyay saas baa lagu xiray qaarna waxa loo sameeyay caawimaad waxa la dhaho oo dawladdu ay leedahay dhibkan ayaa jiro waan aragnaa laakiin ma mudeenay in la ka qaato siyaastarteed waxa la insiinaya aqoon kororsi iyo khibrad baa la insiinaya si aad ubadkiina u haysatiin waxyaabaha laga cabanayna aad xaliisin caruurta la soo celshay kuwii la qaatay waxaan ku guuleysanay 15 in la soo celiyo kontonka kale wali way maqan yihiin maadaama adu wixii aad gacanta ku jirto ka shaqeyso oo de aad markasiyadii oo dhan uga mas'uul tihiin arintan maxay de qoyska ilaa hadeer kiisaska aad qorteen aad diiwaan geliseen ee ay ka iman karaan walwalkan iyo dhibaatadan u dhaxaysa waalidka caruurta iyo dawladda ilaa hadeer qodobo aad cayimteen oo leedinka iyo dhibtu ka iman jirtaan horta si guud waxaa jiro maaragtay warbixin ay dawladdu samayso oo ay leeyihiin warbixin qodobadan ayaa u badan ubadka lagu qaataa marka waxaa loo qaybiyaa sida caadiga ah ajaanibta qaladaadka ay galaan iyo dadka Norwejiga qaladaadka ay galaan dadka Norwejiga qaladaadka ay galaan waxa waaye inay ubadka faraxumeyn kufsiyo kale inay ku sameeyaan maya macnaheedu waxa waalidku loo qaato sabab loo qaato waxa kamid ah in la yiraahdo waalidkan darooga u isticmaalay marka uu kufsaday ama uu kufsaday ama darooga ku isticmaalay ama way dayaceen oo dayacnaan kale ay ku sameeyeen ajaanibta inta badan waxa lagu haystaa dayacnaan guud oo macnaheedu cunto fiican ma cuno daryeel la'aan kale way jirtaa laakiin waxa uu badan gacan ka hadal anaga ka Soomaali ahaan waxa nagu badan oo nagu eedeeyaa waa ubadka waad garaacdeen ama waa disheen sida qof uu yaqaano oo gacan ka hadalkaas ayaa noogu badan inta badan waxyaabahan kale oo ka soo haro maaragtay inaad dhar fiican uusan soo qaadan oo kale dharkii loogu tala galay oo macnaheedu xilliga qabow kale dharkii samarka uu wato kale waxyaabo saasa inta badan lagu ma qaato waxay noqotaa in la yiraahdo lala hadlo leeyahay ka soo bedelo isbedel lagu sameeyo qofkii laakiin inta ugu badan hadda lagu sameeyo waxa waayo gacan ka hadal iyo maaragtay waxaan boolka la dhaho boolka marka uu qaybsamaa inaad cunuga aad dishid jir ahaan iyo inaad maskaxiyan aad u dhaawacdid marka dhibka jirana waxay tahay inta badan maskaxiyan tunu inuu badan tahay oo ubadkii ama la caayo ama la dhaleeceeyo oo maskaxiyan loo dilo marka anaga wali ka Soomaali ahaan waxa laga yaabaa u badan tahay wali inaysan naga dhaadhicin in cunug in la caaya oo maaragtay si xun loo bahdilaa ay uga dhigan tahay sharci ahaan in ayadoo jirka laga garaaco kale ama ka basi xunba marka waxa ugu badan bool waxa la dhaho gacan ka hadalka ayaa nagu badan taas ayaa macnaheedu la cadeeyay inay tahay sabab loo qaato dii si ay arintan aanay jirin ilmihiina uu ka soo cawdo waalidkii uu laa way garaacay qiyaastii maadaama leedahay waxaan dadkii waxaan u dhaxaynaa dawladii ma daba gashaan run ahaanshaha waxaan ilmuhu ama uu sheegay ama dawladdu way jirtaa horta marka qaar qaasatan marka caruurta ay waaweynaadaan ay inta badan waalidka si pressure u saaraan ama ay ku cabsi geliyaan ama baanshaan way dhacday in caruur ay intay baxaan ay ku dhahaan hooyo ayaan ka cabanaya uma laaban karo iskoolka macnaheedu guriga uma laaban karo aan ula jeedaa oo ay macnaheedu pressure ay ku saareen oo saasi waalidkii macnaheedu loo helo looga helo wax la doonayo salaana dad computer noocaas ay gari weysid qoladana u tagaya oo been saas oo kala way dhacday laakiin waxa loo xaliyaa inta badan haddii san jirin inta badan way soo baxdaa waalidka markii la wada hadlo qolada barnaamijka ama hay'ad dareelka ubadka ay waalidka la hadasho ee waalidkii la dhageysto iyo ubadka wuxuu sheegay la dhageysto inta badan way soo baxdaa inay been ay tahay way dhacdo waan aragnay laakiin macnaheedu waxa ka badan inta dhafta ah ayaa ka badan oo ay leeyihiin qoladan ay ku doodayso qaladka aad sameysay waa aad bay macnaheedu u adagtahay inuu been noqdo sababtoo ubadkan yarka ah
ilmaha yarka inuu intaas sababta process la marsiya marka cunug la wareysanayo waxa laga yaabaa in process dheer uu maro dad kala gedisan wareystaano xilliye kala gedisan la wareysto hadii marka wax isku mid ah iyo qaab isku mid ah u sheego inta badan waxa waalidka ayay u laabanaysaa leeyahay arintan adiga aad ka dambaysid laakiin tan ah in waalidka si qalad loo isticmaalo ubadku ay ku dhahaan waalidkii baan macnaheedu ka cabanaya way dhacdaa way jirtaa laakiin qaybta kala ka badan daamo konton la qaatay 15 soo celiseen qaar loo hanjabay in isbedel nooceeya ayaa dhacay markii ay wacyigelintan la sameeyay isbedel ma dareeteen samaxa rajaynaysaa mustaqbalka walaal maadaama wadankii horta uu ballaaran yahay horta way adkaanaysaa in la joojiyo laba arrimood waa in hoos laga xariiqo horta ubad waa la qaadan doonaa laakiin dibka sidee loo yareyn karaa ayaa laga hadlayaa sidee maaragtay anaga ka Soomaali ahaan qaladaad badan aan gali karnaa dad yaw badan laga yaabaa inay macnaheedu aqoon darro u geyso inay qaladaad ay ku dhacaan ama maaragtay information aan ay jirto sidaas darteed aniga waxaan aaminsanahay hadii maaragtay la soo kaliyo oo qafrada la soo daarsado in at least horta laga hadlo problemki dibka inuu jiro laga hadlo dawladdiina waxaan aragnay aqoon darro badan way ku jirtaa ayada ruuxeeda dawladda ruuxeeda qaladaad badan ay sameynaysaa waan aragnay markii la doodo la niqaasho waxay ogol yihiin in wada hadal la furo meelaha qaar tuulooyinka qaasada yar ka oo kale waxa laga yaabaa inay adag tahay in la dhex galo sababtoo inta badan waa xiran tahay laakiin magaalooyinka waaweyn marka hadii soo baxdo oo la dhaho dibkan waa laga shaqay faa'iidooyin badan baa laga gaaray way faafaysaa marka aniga ujeedka ugu horeeya horta waxa ka hortagno in dib dhaco in dibkan maaragtay horta laga hadlo in laga hortago hadii laga hortagi waayo dibka uu dhaco la dhaho ubad waa la qaadan karo soo loo qasban yahay inaan xulul u helno yaa loo dhiibaya marka doodaha inta hadda badan waxay jirtaa dawladda aan isla qirsanahay baahi inay jirtaa in horta dibkan laga hortago la isla kuna raaco inuu dhici karo baahi ay iman karto ubad lagu qaato hadii ubadkaas la qaato xagee la geenaa berito taasoo muhiim ah su'aashaas la weydiisay baa ahayd ma ka wada hadasheen cidda loo dhibay waayo ajaanibta kale hadii laga qaado waxa arkaysaa Pakistantooda loo dhiibo qoysas Pakistan in the ajaanibta kale hadii qoys laga qaado qoys la mido oo reerkii la mido laakiin hayn kara shuruudda wala ka wada hadashay Soomaali badan maadaama ay buuxinayso arinta niyo dhowr dhib baa jiro waxay tahay horta wadanka waa wadan ballaaran hore u sheegnay Soomaalidu magaalooyinka ay kala degan tahay waxa jiro waa lagu kala gedisan yahay qaar baa wada shaqayn fiican la dawladda already qaarna ma aysan bilaabin qaarka aad arkaysid inay hore u bilaabeen inay wada shaqayn la bilaabaan oo ay maaragtay ay tilaabo qaadan ay dawladda la hadlaan dhahan war anaga Soomaali baan nahay masaajidkan aan ka tirsanahay masaajidka oo maaragtay dadka wakiilka noqdo dawladda wada hadal uu la furo oo yiraahdo wixii dhibaha jira nagala shaqeeya arimahaas magaalooyinka qaar aad bay ugu diiwaan gashay oo macnaheedu ay u hirgashay oo waxa la isku raacsan in la dhaho hadii dib uu dhaco adinka la idin weydiinaya waan haynaa magaalooyinka ma badna laakiin sidaas darteed ayaan leenahay war anagu maaragtay ka dalad ahaan aan aruurino magaalooyinka horumarka arintan ka gaaray si loogu gudbiyo kuwa aan gaarin oo maaragtay ay tusaale ugu noqdaan qolooyinkan heerkaas fiican ka gaaray inay noqdaan ay tusaale fiican u noqdaan si khibrad looga qaato marka waan ku guda jirnaa inaan sameeyno inaan dhahno okay dadkii maaragtay hala sameeyay Soomaali horta la helo diyaar ah ka baadi kamuun kastaaba ama degmo kastaaba masaajid ku yaala xiriir hala sameeyo ama dad ay iska wakiishaan anaga waxaan dhahnaa inta badan daladan waxay noqonaysaa waa tii guud laakiin dadku waxay ismaamulaano qof wax la dhaho guud hoosaadya jiro sideed qof aan maamulka sare ku jirnaa laakiin qof kasta area mas'uulka ayaa laga rabaa magaalo kasta inay dad yar ay iska soo saaraan oo guud hoosaadkaas ayaa waxay wada hadal la furayaan dawladda waxay leeyihiin anaga dad Soomaali baan nahay wakiil dadkeen bulshadeena ka nahay anaga masaajidkeena iyo bulshadeena isla socona waa kana ubad hadii nagala qaato waxaan doonaynaa inaan helno dadkan aad noo diiwaan gelisiin oo aad noo sameeyeen dibka ugu badan jira marka Soomaalida shuruudaha ma buuxin karaan inta badan ubad waxaan haynaa aan u weyn dad qaato dad loo dhiibo ama shuruudii bay buuxin waayeen oo maaragtay shuruudihi laga rabo ma buuxinayaan ama qofkii Soomaaliga ah shuruudi buuxinay wuxuu leeyahay inay dawladda ay keenin sababtoo markii ubad lagu dhiibo dawlad baa la socoto waa lagu kontroolaya qofka marka Soomaaliga wuxuu leeyahay war hadii la sameeyo hadii ubad la keeno ubadkan aan qaato
dawladda guriga soo gasho bal ay dhacday inaan qalad already sameeyno oo kuuga ay qaataan bal ka waran baxay keenay dawladda markii sidaas darteed marka inaan kalsoon dadka dhisno oo dhahno war qof bil aadana tahay qalad waad galaysaa dabcan malaa'ig ma tihid laakiin inaad horta ku aad ku daashay inaadan gelin aad wanaag badan aad samaysid ubadkan loo gargaar marka haddaan soo duubo waxaan ku dadaalaynaa hadda inaan helno dad magaalo kastaba dad kooban oo loo dhiibi karo ubad haba yaraadaan in la helo waa gartay waxaad sheegtay shuruuda ilaa hadeer wax ma ka sheegi kartaa mise waa shuruudda lagu xidhayo ruuxu in uu ilmo adapt garaysta ama uu qaato ilmo Soomaali horta sida caadiga shuruudo guud baa jira haddana waxa way hadba xiriirka idinka dhaxeeya macnaheedu bulshadaas meesha degan iyo dawladda xiriirka ka dhaxeeya shuruudaha guud waxa way waa inuu qofka uu koorso u qaato oo la mariyo maaragtay shahaado la siiyo inuu ubad qaadan karo oo la dhahayo shahaadana haysta Abdullahi Maali ama Xaliima qoyska sare Abdullahi waxay qaadi karaan ubadkaas waa dawladda ba siisay approval siisay sidaas tarteed way u cadeynaysaa laakiin waxaa jirto mararka qaar in shuruucdaas maaragtay laga yimaado waxaa kamid ah tusaalaha shuruucda inaad qof mas'uuliyad qaadi kara inaad tahay ubad loo dhiibi karo qasab ma aha inaad ubad aadashay in ubad loo dhiibi karo aad haysatid deegaan qof shaqaysta tahay mararka qaar way dhici kartaa haddii aad shaqaysatid in haddana shaqaysan in shaqo lagaaga dhigo laakiin kullama aad haysatid qof shaqayna already stable ah markaa tahay way ka fudud tahay macnaheedu in ubad lagu dhiibo haddii aad tahay qof aan already shaqaysanaynin mararka qaar waxaa dhacda in laga gato waqtigaaga oo lagu yiraahdo okay shaqayna anaga gurigan joog ubadka noo hay anaga ku siinayna badiilka oo shaqadaada taas waa shuruudo guud way badan yihiin kama gaarnaan filayaa waxaa jira laakiin inta badan haddii dawladdu ay maaragtay samayso wada xiriir fiican haduu jiro hadda magaalada kamid Bergen la dhaho iyo meelo kale oo badanba waxyaabaha nagu leeyahay waxaa kamid ah qasab ma aha inuu qofku ku shaqaatay inuu haysto koorsada inuu qaatay qasab ma ahan waxaad sameey kartaa ubadkii baan u dhiibaynaa ubadkii koorsada hal mar aan siinayna waxaan leenahay waa kanaha unuga noo hay koorsadana kala qaado marka inuu horta qofku qof mas'uuliyad qaadi kara uu yahay qof shaqaysta uu yahay deegaanka uu haysto intaas ayaa ugu muhiimsan ugu dambeyntii inkii adoo si kaliisaabaynu u kulanay adoo safara oo runtii aan waraysi aan qaadi karin waxaan doonayay ugu dambeyntii kelmadda waraysigaagana aad ku gunaanaysaa maxay tahay ee aad dadka fariin halkan aad ku marinaysaa walaal horta laba arrimood baa jirto waxay tahay waa dawladdi iyo Soomaalida wadan baa nimad system baa ka jira annaguna dad waxaan nahay dhibaato la soo kulmay soo qaxayo ay guduuday soo galeen sidaas darteed waxaan u baahanahay in haddana dib u dejin aan isku sameeyno inaan sameeyno wadanka nimad system baa ka jiro inta badan waxaan ku doodnaa ubadkeena u soo dhigtaan oo qaataan shuruucdan waxa 200 sano ka hor baa la sameeyay haysba bedelaano maalinba waxa lagu daro waxyaabo badan oo anaga dan noo ah way jiraan hadda ku cusub oo ay kamid tahay in qofka maaragtay hadii unug la qaado in maaragtay loo dhiibo qoys familkiisa ah la weydiiyo laho aliyow عبدي أو بتكيسان سوق هذا أداء ذلك وده مقادسة إن هذا الشرع اللي قديه تاسو جرا وحياة بدل ضمن وجود طوال سمين لكن هذا شروع ذن أنا نقول متلقيني وهرتين أنه سيستم كان عن أوني مدري تذكر وحياة مهم كوحية هاي إن كلسونا عن هلنا أنا كصومالي أهان قيس قف كصومالي شخصية دي إنه سن أستولينين امتحانات يا لما رأيوا بتكالس كقاضية مال كالس كقاضية عافمات كالس كقاضية أنت صرنا حكي مدي امتحان إلهي سبحانه وتعالى ونمسيناي إنه هرتكو قفك ويرهدو maaragtay oo ku dadaalo inuu macnaheeyo la qabso oo sameeyo oo kalsoonidiisa u dhiso aqoonteena inaan dhisno in aan maaragtay aan ku dadaalno inaan wada shaqeyn iyo iskarab qabsi in macnaheeyo muhiimadda ugu muhiimsan waxay tahay qofka badbaada ma jiro cilmi kasta lahaw qof Soomaali baa hadda qalad gashay dhagta loo qamo laga qaaday taas waa taas dhinaca kale jirta waxay tahay in dawladda la hadlo wada hadal la furo waxyaabaha aan qifrada aan u helno waxa kamid ah in hadii wada hadal la furo la tusiyo in maaragtay rabitaan uu jiro in maaragtay dhibaatooyin iyo maaragtay dhibaatooyinka jirsi loo hortagi lahaa hadii la tusiyo xulul la keeno way qaadanayaan sidaas darteed in aan aqoonteena anagu aan dhisno dadkina xiriir wanaagsan aan la sameeyno dhahno waa kanaha waan jirnaa dad joogaan nahay dad dalka kamid ah nahay dhibaatooyin wayna qabsan karaan laakiin haddana saas ay tahay manihin dad aan macna waxba ku toornayn sidaas darteed
in aanu kalsoonida dhino dawladana wada hal fiican la furo taas ayaan isleeyahay way ugu muhiimsan waad nasantahay Cabdilaahi waraysiga kaliisada ka qaaday daawadayaal intaasi waxay nagu dhamaaday waraysigii koobnaa ee aan la yeelanay gudoomiyaha dalada talasiinta qoysaska Soomaaliyeed ee dalka Norway Cabdilaahi Cilmi Ibraahim